Dowladda Uganda oo ciqaab adag marsiinaysa qofkii dila shimbirka ku sawiran calanka dalkaasi Uganda. Intaan u gudagelin sheekadan xiisaha badan haddii ay tahay markii kuugu horeysay aad na soo booqato, waxaan kaa codsanaynaa in aad nagu soo biirto mahadsanid. Dowladda Uganda ayaa sheegtay in ciqaab xabsi daa'in ah ay ku ridayso qofkii dila shimbirka ku sawiran calanka dalkaasi Uganda. Waxa ay sidoo kale dowladda sheegtay in ay ilaalinayso beegsiga ka dhanka ah shimbirkaasi. Dowladda Uganda ayaa sidoo kale sheegtay in ciqaabtaasi adag ee xabsi daa'inka ah ay daba socoto ganax lacageed dhan 20 bilyan oo lacagta Uganda ah, una dhiganta 5.7 milyan oo dollarka Mareykanka ah. Waxa ay sheegtay in ciqaabtaasi ay u soo rogtay si looga baaqsado dilka joogtada ah ee loo geysanayo shimbirkaasi. Gudoomiyaha duurjoogta ee dowladda Uganda ayaa sheegay in shimbirkan uu wajahayo halis badan oo uga imaanaysa deegaanada ay ku nool yihiin, maadaama dhulka duurjoogta ay ku nool yihiin ee dowladda Uganda maalmihii dambe laga soo warinayay in ay ka jirto xaalad adag. Dabargo xoogan ayaa ku socda shimbirkan laga helo duurka dalka Uganda. Sanadkii 1989 tirakoob la sameeyay ayaa waxaa lagu sheegay in shimbirahaasi ay gaarayeen 35,000 oo shimbirood. Sanadkii 2022 tirakoob la sameeyayna waxaa lagu sheegay in shimbirahaasi ay noqdeen 8,000 oo shimbirood. Wasaaradda duurjoogta ee dowladda Uganda ayaa sheegtay in ay wax ka qabanayso dabargo ku socda xayawaanka oo biyo la'aan, baad yari iyo dhibaato nololeed ay ku haysato dhulka kaymaha ah oo ay ku nool yihiin. Dowladda Uganda ayaa ka cabsi qabta in shimbirkan uu ka dabargo dalkeeda. Sidaas daraadeed waxa ay soo rogtay ciqaabtan adag oo xabsi daa'inka iyo ganaxa lacageed la isugu darayo qofkii lagu helo in uu dilay ama uu ugaarsaday shimbirkan, maadaama uu astaan u yahay dalka oo dhan.